Direct from Washington, the voice of America, VOA. subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaanaysa washington. waa subax khamiisa bisha maaj waa 29 sannadka 2018 waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 mitrban iyo bogga voa somaly.com idaacaddeenna saakana waxaa idinaya anigu waa maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mida ururka EPRDF ee haya talada dalka Itoobiya oo guddoomiye cusub u doortay nin asalkiisu uu yahay muslim balse intaynu taasi u gelin maxamed cabdisandheere maxamed saray qodobadaasi waa marar kalean idaacaddeenna kaga sheekayn doonaa hase yeeshee qodobka idaacaddeenna saaka iyo caalamka aanu ku soo qaadanayna ugu horreeya waa cabsi intee leeg ayaa laga qabaa in dhibaato dhinaca dastuurkii ay ka dhacdo dalka soomaaliya. qas bilowdi waayo oo hor lahoo bilowdi waayo marka dantii dalka lama fiirinin marka danta dalka loo soo jeestaa leeyahay arrintaa horta intii beesha caalamka iyo xalaan akoord imaan waqti ay jeclaan lahaa. qodobada kaleed maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mida garyaqaan u doodaya soomaali ku jirta xabsi maraykanka ku yaala oo sheegay in dadka loo geysto xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sii waday isku shandhinta uu ku samaynayo golaha xukuumaddiisa arbacadii shalay isagoo xilkii ka qaaday david sholkin oo ahaa xogeyaha qaabilsan dadka u soo dagaalamay ee dalkan maraykanka. xogeyahan ayaa waxaa beddelaya jackson oo ah dhakhtarka gaarka ee madaxweyne donald trump kaas oo ah kii sameeyey baadhistiisa caafimaadka ee u dambeysay. jackson ayaa waxaa la magacaabay sannadkii 2013 isagoo dhakhtar gaara u ahaa madaxweyne barack obama. madaxweyne trumpna uu markaa xilka u sii daayey. shalkin waxa uu sidoo kale xilligii obama ahaa ninka maamula hay-adda labaad ee ugu weyn ee dalka maraykanka taasoo hayay muddo sannad in yar ka yar. hase yeeshee muran isaga iyo koox raacsan trump dhex maray ayaa keenay in xilkaasi laga qaado. madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay in uu fursad fiican ay tahay in kuuriyada waqooyi hogaamiyaheeda kim jong un uu wakhtigan rajeynayo wax asaga u fiican dadkiisa iyo sida uu yiri wax u fiican ibni aadanka intiisa kale ee ah inuu ku dhaqaaqo tallaabo uu kaga dhigayo goob ka caagan hubka waxgumaado ee nucleerka deegaanka gacanka kuuriya ee labada wadan dhex mara. war uu soo dhigay arbacadii shalay ahayd madaxweyne donald trump bartiisa twitterka ayaa waxa uu ku sheegay in ay tahay qorshe uu qorsheynayo inuu la kulmo kim jong un balse waxa uu sheegay xaqiiqada sida ay muhiim u tahay in lagu sii geejiyo hogaamiyaha wadankaasi ee keligii taliska ah waxa uu ku sheegay cunaqabateyntii horey u saarneyd iyo cadaadiska la saarayo. shiinaha ayaa markii kim jong un uu ku tegay safar aan horey loo sii shaacinin magaalada beijing waxa uu xaqiijiyey sida uu u rabo in uu ka dhigo gacanka kuuriya meel ka caagan hubka islamarkaasina uu rajeynaya inuu wadahadallo la yeesho maraykanka iyo kuuriyada koonfureedba. sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee shiinaha sarkaal u dhashay wadankaasi ayaa waxa uu sheegay kim in uu ku yimid booqasho aan la shaacinin markii horeba maalinkii axaddii lasoo dhaafay dalkaasi shiinaha. subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. jonathan ryan waa qareen
dhinaca socdaalka wuxuuna gacanta ku hayaa kaysas 80 qof oo dalalka Afrika dad u dhashay ah kuwaasoo 60 ka mid ihi ay Soomaali yihiin kuwaasoo ku xidhan xabsiyo ku yaala gobolka Texas ee Mareykanka. Qaran Ryan ayaa sheegay in xarumaha lagu hayo dadkii dhowaanahan laga qabqabtay gudaha Mareykanka iyo qaar ka mid a kuwii diyuurad qaaday laga soo celiyey dalka Senegal ay hadda ku nool yihiin xadgudubyo lagu geysto xabsiyada dhexdooda. Qareenka ayaa sheegay in dadkaasi loo geystay xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadamaha ka soo horjeeda oo ay ku jiraan garaacis, aflagaado, sharafdil iyo falal maskaxda ahaanba wax loogu dhimayo. waraysi dhinacyo badan taabanaya oo qoreenku VOA da siiyey ayuu ku sheegay in xadgudubyadan ay geysanayaan ilaalada xabsiyada dadkaasi lagu hayo. waraysigan oo ay qaaday wariyaheena Zaare Cabdi Axmed ayaa ugu horreyn waxay weydiisay tirada Soomaalida ee xabsiyadaasi ku jira. To our knowledge, there are more than 60 Somalis who are currently in detention in Texas. This includes many individuals who ogaantay 60 Soomaali ayaa ku jira xabsiga Texas. waxaa ku jira dadka qaar badan oo ka mid ah dadkii hore diyaaradda loogu qaadi jiray Soomaaliya ee Afrika laga soo celiyey. dadkan dhowr jeer ayaa laga wareejiyey xabsiyo kala duwan, qaarkood waxaa la hayay 6 bilood, qaar kalena 18 bilood, waxaana sidoo kale ku jira kuwo la hayay asbuuc ugu yaraan. intii dadkan lagu hayay xarumahan waxaa la marsiiyey xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha kuwaasoo isugu jira gacanka hadal, qalbi jabin iyo xadgudubyo kale. waxaa kale oo loo geystay cadaadis ah inaan loo ogolaanin inay isticmaalaan musqulaha. waxaa loo diiday qaarkood codsiyo dhinaca dawada ah, qaarkoodna waxaa la geliyey qolol masas leh. waxaa sidoo kale ay ku sameeyeen cabsigelin hub loo adeegsaday. qaran Jonathan Ryan waxa aan weydiiyey dadkan xaaladaha adag ee naxdinta leh ku sugan inuu noo sheego cidda u geysanaysa tacadiyadan iyo sababaha waxa ay yihiin. What is clear is that when you have a president who openly declares all immigrants enemies, who encourages law enforcement. waxaa iska cad markaa tahay madaxweyne si furan ugu dhawaaqay in dhammaan dadka soo galootiga ee cadowtinimo uu u qabo, kuna dhiirigelinayo hay-adaha amniga inay ula dhaqmaan si fool xun qofka ay xidhaan. waxaad xaqiiqdii abuuraysaa xaalad ay mas-uuliyiintu ku gabood fali karaan, dadka ay qabtaanna ay ku sameeyaan xadgudubyo. shakigagama jiro in xadgudubyada dhacaya uu dhiirigeliyey madaxweynuhu. Those immigrants are in detention center. They were previously prepared to be taken. dadkan waxa ay hadda ku jiraan xabsi. horey ayaa loogu diyaariyey in loo qaado Muqdisho, Soomaaliya, waxaana laga soo celiyey Senegal, Dakar. maxaa ku dhacay oo Amerika dib loogu soo celiyey? What happened to these individuals in detention, in a sense, makes them a class because they all suffered similar abuse by the same individual. waxaa ku dhacay dadkan ku jira xabsiyada ayaa ah in dhammaantood ay ka siman yihiin xadgudubyada ay u geysanayaan ilaalada xarunta lagu hayo. waxayna isugu jiraan rag ka yimid Afrika, kuwa ka yimid Soomaaliya tira ahaan waa 80, qaarkood ayaa helay qareeno u dooda, qaarkoodna maba ayna helin. waxaa ku jira dad ku noolaa Maraykanka ilaa iyo sanadkii 1992 iyo kuwa hadda soo galay dhulka Maraykanka oo magangelya doona. maraan weydiiyey qareenkaasi Jonathan Ryan dadaalada xilligan ay sameynayaan si dadkaasi looga baajiyo dhibaatooyinka haysta, gaar ahaana Soomaaliya oo wakhtigan xaaladeeda amniga aan la isku halleyn karin laguna noolaan karin, dadkii horey u joogeen ee dareemayaan qaarkood amni darro, ayaa wuxuu iigu jawaabay. That's right. My organization and myself personally have been focused on Somali asylum claims for a majority of our career. waa runta, ururkayga iyo aniguba shakhsiyan waxaan xoogga saarnay magangelyo doonka ka yimid Soomaaliya. waxaan sidoo kale soo qabtay kiisas boqolaal dad Soomaali ay leeyihiin. wakhtigan la joogo sababo la xidhiidha kiisaska dadkan in loo xereeyo magangelya doon wakhti dheer ayay qaadanaysaa. marka la eego musaafiriinta degdega ah ee laanta socdaalku ay doonayso, dadkan waa inay qaarkood helaan in dacwadahooda loo furo oo ay wakhti u helaan. marka dhammaanteen hadda waxaan diiradda saaraynaa inaan ka hortagno inaan la musaafurin dadkan si aan keys walba iyo qofkiisa uga shaqayno sida ugu dhaqsaha badan. su-aasha ugu dambaysa aan weydiiyey qareenka waxay ahayd dadka wakhti intaasi la ku noolaa dalka Maraykanka sida ilaa iyo kuwa ku noolaa 1992 wakhtigan inaysa haysanin waxa sababay dhalashada ama deganaanshiyaha dalkan. wuxuuna iigu jawaabay. The circumstances surrounding each case is different and can be subject to confidentiality, but I can tell you that from the interactions I have had with numerous individuals, most of them were people who for one reason or another had not.
xaaladaha ku xeeran keys kastaba waa weji gooniya iyo mid u baahan in la dhowro oo aan laga hadlin laakiinse waxaan kuu sheegi karaa sida aan dhowr qof ku arkay kaysaskooda waxaa jira in sharciga deganaansho amaba kandhalasho ayna ku heli karin hal dhacdo amaba laba dhacdo oo ay xadgudub ku sameeyeen waxayna daba socdeen laanta socdaalka iyagoo danahooda wata markii dambena hay-adda ice ay qabqabatay kaasi waxa uu ahaa waraysigii aan la yeeshay qareen jonathan ryan oo ah qareen isagu dhanka socdaalka ah kuna sugan gobolka texas halkaasi oo galbeedka gobolkaasi ay ku xiran yihiin 80 qof oo afrikaan ah intooda badanna 60 ka mida ay yihiin soomaali kuwaasi oo ku xiran xabsi ku yaala halkaasi muddo u dhexaysa sanad iyo 6 bilood ilaa iyo toddobaadkii ugu dambeeyey waxaana waraysigaasi uu ahaa waraysi dhinacyo badan ah oo aan la yeeshay goordhaweyto subax wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington dhegaystayaal subax wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay intiina afrika joogta inteenna dabcan maraykanka iyo waqooyiga maraykanka joogtana waa inoo fiid wanaagsan qaar ka mida gobolada habeenkii xalay ahaa waxaa kulmay xildhibaano ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ahna kuwa kasoo horjeeda mooshinka laga keenay guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaare afhayeenka baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya xildhibaanadaasi ayaa kulankooda kadib qabtay shir jaraa'id oo ay ku sheegeen in mooshinkii laga keenay guddoomiyaha uu hadda si sharci ah u jabay sidaasina uu guddoomiye jawaare hooshiisa kusii wadan doono maxamed cabdisan dheere ayaa haddaba warbixin dhinacyo badan oo arrinkaas ku saabsan noo haya kulanka oo ka dhacay xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa ayaa markii uu dhammaaday waxaa qodobada lagaga hadlay akhriyey xildhibaan jaamac askar xildhibaan askar ayaa ka hadlay marxaladihii uu soo maray mooshinka laga keenay guddoomiye jawaari kaasoo markii ugu horraysay la xireeyey 14 bishan aynu ku jirnay march muran dhinaca tirada xildhibaanada ah kadib ayaa askar sheegay in guddoomiye jawaari u oggolaaday tala ka timid aqalka sare oo ahayd in la socodsiiyo mooshinka lana marsiiyo waddadii ay xeer hoosaadyada baarlamaanku oggolaanayeen sidaasna uu guddoomiye jawaari ku oggolaaday taariikhdu markay ahayd 18 bishan march xildhibaan jaamac askar ayaa haddaba akhriyey qodobo dhowr ah oo guddoomiye jawaari uu ku noqonayo guddoomiyaha saxda ah kow in laga bilaabo maanta oo bishu tahay 28 maarso 2018 mooshinkii kalsooni kala noqoshada ee 14 maarso laga keenay mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari uu buray si waafaqsan sida qodobka 9aad faqradiisa afraad ee xeeroosaadka golaha shacabka 2 in guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari uu sii wato hawl maalmeedkiisii shaqo guutana waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku aadan hogaaminta iyo habsami socodka howlaha golaha xildhibaan jaamac askar ayaa sidoo kale ka hadlay in loo baahan yahay in ciidamada amniga ee soomaaliya ayna ku milmin siyaasadda dibaddana ay ka joogaan xildhibaanada kale ayuu sidoo kale ugu baaqay in xasilloonnida baarlamaanka ay qayb ka qaataan ugu dambayntii xildhibaan askar ayaa sheegay inay tahay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu arrintan soo farageliyo isagana ay mas-uuliyaddiisa noqonayso haddii uu burbur ku yimaado baarlamaanka soomaaliya kulankaas habeenkii xalay ahaa ee ay qabteen xildhibaanada raacsan guddoomiye jawaari kadib ayaa waxaan la xidhiiray xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo ka mid a xildhibaanadii xereeyey mooshinka hadda uu hadalkiisu taagan yahay waxaanan weydiiyey siday u arkayso shirkii xalay dhacay waxaan arkaya warqada hadda wareegaya waxaana u arkaa horey socod dib u soco maxaa daal la kororsaday jahawareerkay ka mid tahay iyo marin habaabinta shuruucda dalka u taalla lagu samayna taasaana keentay waa macnihii aan mooshinka uga keennay guddoomiyaha mooshinka ka yaallo jawaari taasaa u sabab ah marin habaabinta sharciga lagu samaynaya qofna ma afduubi karto sharciga isagaa dad qof walba ka sarreeya waxa iigu yaabka badan oo caawa ka soo baxay expire date ayuu leeyahay xeerarka dalka u yaalla iyo shuruucda dalka u taalla haddii expire date laga dhigay yaa xildhibaanada siiyey 4 sano expire dateka haddiiba ilbiriqsi lagu qori karo oo waxa qaran lagu tirtiri karo saa ku noqonaysaa mudana golaha shacabka xildhibaan khadiijo maxamed diiriye ayaan ugu dambayn weydiiyey khatar ku iman karta jiritaanka baarlamaanka soomaaliya haddii uu xaalku sidan kusii socdo taas kama baqaayo laakiin waxaan ka baqayaa xildhibaanka hadda dhahaaya ilbiriqsi gudihiis ku dhahaaya ee expire date xeerka iyo shuruucda dalka u taalla rabo mandate 4 sano inuu haysto yaa ayaan leeyahay
shalayna waa ila tala xumeyd maantana waa ila socod yar tahay inay ku dhacdo laakiin waxaan kuu sheegaa dalkana wuxuu leeyahay shuruuc iyo xeerar u gaara oo dalka dawladda ay ku jirto adduunka oo dhan aana aaminsan inay dawlad ku jirto shacabka soomaaliyeedna ayay dawladda u tahay dawladdii dalka iyo dadka saas daraaddeed cidima fasaqi karto cidima bedeli karto haddii amendmentii loo baahdo xitaa qodobada wax kabeddelka u baahan waa la samayn karaa xildhibaanada mooshinka ka keenay guddoomiye jawaari ayaa sheegay in 11 bishan march ay tahay maalinta loo ballansan yahay in codka kalsoonida loo qaado guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari maxamed cabdisandheere ayaa warbixintaasi isugu kaayasoo dubarida halkaasi aad kala socoteenna waa washington haddaba ko adkaysigan ay qayb walba dhinaceeda ku dheggan tahay ma keeni kartaa in soomaaliya ay la kulanto dhibaato dhinaca dastuurka ah si lamida sida kii baarlamaankii 8aad su-aashaas iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey cabdiraxmaan sheekh cali oo ku sugan dalka ingiriiska xubinna ka ahaa baarlamaankii 8aad ee burburay cabdiraxmaan ayaa ugu horeyn sharxaya sida uu burburkaasi ku yimid bismillahi raxmaan raxiim marka hore adiga iyo tiimkaada waa ku salaamay salaanta islaamkana ku salaamay runtii october 25 2011 ahayd marka ay dhaceysay waxaana isku dhacay sheekh shariif oo madaxweynaha iyo shariif xasan oo guddoomiyaha baarlamaanka ah isku dhacay isku dhacoodina wuxuu keenay burbur iyo baarlamaankii inuu dagaal ka dhaca albaabka la jabsado la kala safto kuraas la isku garaaca marka dhibaatooyin badana meesha ka dhacayo oo maaragtay taasaa marka burburka keentay dib dambena looma shirin oo ilaa laga gaaro roadmapki kambala kood laga gaaro dib dambe looma shirin marka khatar saas ah ayaa timid marka ay dhacdo baarlamaanka in laisku feero oo dhibaato ka dhacdo lana xallin waayo roadmapkii oo beesha caalamkaa sugaysa sida caadiga ah waan gartay ma filaysaa in tallaabadaasoo kale laga yaabo hadda inay dhacdo tii idinku dhacday idinkoo ah baarlamaanka 8aad oo kale runtii ilaahan ka barya inaysan dhicin waayo danta ummadda waxay ku jirtaa inay ku jirtaa dawladaan u baahannahay qarankii deganaan u baahannahay nabadgelyan u baahannahay marka ma sugaayo laakiin qaabka hadda ay wax ku socdaano markaad dhegeystid sida hadallada isku dhaafsanayaan muxuu ahay xildhibaanada kala taageersan labada dhinac kala taageersan qaabka idaacada isku gudbinayaan oo maalin xataa waxaan arkaya xildhibaano dhahaya muxuu ahay aqalkaa sare wuxuu lamid yahay nimanka ceelgaab joogo oo shacabka ah waxyaabaha isku dhaafsanayaan khilaafka hadda meeshuu gaaray waxaa isku ujeedo noqday isku aragti noqday aqalkii sare guddoomiye ku-xigeenkii labaad iyo guddoomiye jawaarey iyo muxuu ahay guddiga joogtada ah isku aragtay noqdeen golaha wasiirada intooda badan oo xildhibaano ah iyo muxuu ahay prime ministerkan isku ujeeda noqdeen macadda madaxweynaha xaalkiisa macadda marka meeshuu maraya meel xunuu maraya 31 ayuu muxuu ahay yiri guddoomiye ku-xigeenka koowaad in la isugu yimaado taas marka burbur hor laha ayaa sii bilaabanaya marka waxaa imaanaysa 31 inay tagaan nimanka taageerta prime ministerka inay tagaan dhici karto oo ay guddoomiye doortaan ama ninkaan ay ka dhigtaan dhici karto kuwa kale madaxweyne doortaan dhici karto marka qas bilawdi waayo oo hor lahoo bilawdi waayo marka dantii dalkan lama fiirinin marka danta dalkan loo soo jeestaan leeyahay arrintaa horta intii beesha caalamka iyo xalaan accord aysan imaan horta jeclaan lahaa waan gartay markii xaaladan oo kale ay dhacdo arrintan iminka socota meesha laysla soo gaadho yay ahayd cidda furdaaminaysa ee labadooda dhexdhexaadin maahee sharciga iyadoo la marayo kala saari lahayd haddii burbur yimaado inkastoo laga saaray qodobkii dastuuriga ahaa oo ahaa in madaxweynaha ku-xadirka baarlamaanka inkastoo laga saaray haddana madaxweynaha wuxuu yahay ilaaliyaha astaanta qaranka waay iyo ilaaliyaha dastuurka ma uga hari karo muxuu ahay arrintaasaan ku aamusi karo waa ku khasban yahay soo dhex kale waa ku khasban yahay laakiin dastuurkii nin walba hadda baarlamaanka nin walba suura u isticmaalaa awoodaa la isticmaalaa golaha la isticmaalaa marka qaab daraa ka socota meesha marka waxaa le badbaadada waxa badbaadin kara waa madaxweynaha caddeeye mawqifkiisa caddeeyo oo si uu waddanka u badbaado laakiin cid kaleo hadda laga sugaayo ma lahan waayo waa dad isbiirsaday oo aan ka fikirin mustaqbalka soomaaliya iyo wax imaan kara iyo aan ka fikirin ayay noqdeen muxuu ahay xildhibaanadii arrintan laga raba inay maaragtay ay jid u samaystaan sababtoo ah waxaa jirta xan baarlamaanka golaha fulinta ama wasiirada laleeyahay waxa ku xiga hadduu jawaari fakado waa motion prime ministerka xantaasaa jirta cabsiya markaa jirta si markaas ayagana ma samaynayaan ma aamusayaan oo hawsha wadanayaan marka madaxweynaha isleeyahay keliya waa ninka hadda astaanta qaranka asaa madax u ah muxuu ahay ilaaliyaha qaranka asaa ah qeeraha dastuurka asaga ah
marka ma ka bixin karto dastuurka waa laga saa qodobkaas kama bixin karto marka asaga soo galaan haddii kale beesha caalamka diyaar ah inay xalaan iskugu geeyaan oo yidhahdaan waxba kama soconayaan kala taga meesha oo ay wax kala sameeyaan cabdiraxmaan sheekh cali cabdiraxmaan dheere oo ku sugan dalka ingiriiska ayuu kaasi ahaa horena uga mid ahaa sharci dejiyaashii hore ee soomaaliya baarlamaankii 8aad wuxuu u waramayay maxamed cabdisan dheere halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19 25 iyo 49 mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba 4 galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a arday dhigata iskuul ku yaala degmada caynab ee gobolka sool ayaa waxay dhibaato ka haysataa dhinaca fasallada wax ku bartaan oo aan ku filayn warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye waa arday aan nasiib u helin inay helaan hooy ay wax ku bartaan oo ku filan kaas oo ay kaga gabbadaan fallaadhaha cadceedda ee toos ugu soo dhacaya madaxooda waa dugsiga hoose dhexe ee ayaanley magaalada caynaba in ku dhow 500 oo arday ayaa caqabada ka haystaan waxbarashada khadiijo maxamuud jaamac waa maamulaha dugsigaasi markaan booqashada ku tegay waxay xiisad ugu jirtay arday bannaanka wax ku baranaysay ardayda iskuulka dhigataa waa 457 arday 130 waa wiilal inta kalena waa hablo guud ahaan wuxuu ka kooban yahay galaas 1 ilaa galaasay inkasta oo caqabad fasal la'aan ah ay haysato haddana isma dhiibin ardaydani waxaanay sii wataan si kasta ay ku helayaan waxbarashadooda arday aan isku heer waxbarasho ahayn ayaa mararka qaarkood wadaaga fasalada taasina waxay caqabad kale ku tahay fahanka duruusta iyagoo dibadda loo saaro qaarkood kolley dee si ay u leegtahay idinba waad aragtaan ma leeka waad aragtaan dhibka haysta iyo dhibaatada jirta nimanka matalan marka haddeer fasalkan aan dhex taaganahay oo kale waa 2 fasal waa class 5 iyo class 7 marka iminka macallin ku jiro macallinkii kale dhib bay ku tahay in 2 macallin meeshii wada galaan ay labadii fasalka gudihiisa ugu dhigaan marka hal macallin iyo hal class banaanka ay u baxayaan oo duruufta ayaa keenaysa inaan 2 macallin dee fasal gudihiisa aysan waxba ku sharixi karin qaar kale oo dee balbalooyin oo aan xataa dee iyagu 4 fasal ka tira badanina way jiraan oo class 3 iyo class 6 oo kale iyaga dee balbalooyin baa u dhisan markooda horeba geesta kale mas'uuliyiinta waxbarashada ee heer gobol ayaa maamulka iyo ardayda dugsigaasi la arkaa baahida jirta iskuulka carqalada haysata waxa weeyaan arday ilaa 500 ku dhow ama 500 ba gaaraysa baa dhigata waxa u dhisanna waa 4 class oo aan dayr lahayn waaba yaryar bay u samaysteen dhir bay u samaysteen dayr xitaa male dee ay dilankan ay ku asturaadaan marka wuxuu u baahan yahay in galaasida loo kordhiyo wuxuu u baahan yahay in dayr loo sameeyo kulli haado inta dhisanba dilankan wasaaraddu baa dilankan ay dhistay oo dilankan ay ka qabatay wixii agab iyo wixii dilankan ay hawlaha kale u baahan yahay in wasaaraddu iyadu baa gacanta ku hayso wada laakiin inta dhisma aan kulli hawl mar lama wada fuliyo laakiin step step baa loo wadaa laakiin waa hawl uu kulli u baahan hadeerto in degdeg wax looga qabto maamula khadiija waxay ii sheegtay inay dalabyo badan u gudbiyeen wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee heer gobol iyo mid heer xukuumadeedba mar kale ayay baaqan haddana diraysaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaan baaq dheer ugu jeedinaya iyo cid kasta oo danaynaysa iskuulka baahidiisa in naloo dhiso fasallo ku filan ardayda bacadka iyo boodhka iyo cadceedda maxay tahay fadhida waan ka codsanayaa barkhad maxamuud kaariye v o a caynabo aad buu mahadsanyahay barkhad haatana dhinacii gebagabada barnaamijka subxanuun kusii dhownahay zahra dhinacii sugaanta aan idhaahda dhinacii heesaha waa sidaasi cabdirasaaq anshax ayaan soo qabanayaa iyo mid ka mid a heesihiisa
dayma qurux ilwadlo indhaha duwata wiilkooda dulsahankaygo darmada warata laagtayda tiradii halkiyo dhibtaba iga daryeelaysa dugsiya allo dejiya daaka iga bixisa dayma qurux ilwadlo indhaha duwata wiilkooda dojsahankaygo darmada warata laabtayda tiradii halkiyo dhibtaba iga daryeelaysa oo halkaan ka doonayo halkeed iga dareemaysa dul badano ina dabacsano ina dumaraysan oo halkaan ka doonayo halkeed iga dareemaysa ii dul badano ina dabacsano ina dumaraysan ma ahayn afkana daafad laga saarin dabci wacan dadnima qaaliyoon abidka duugoobin dul xariira nasab daahiro nolosha ii darata dibjirnimo midaan kaga buuxoon daalka kaga dhaysto dabarkeedu iimaanka yahay ma u diiday idoran lahayo adadayn boondurya ma ahayn afkana daafad laga saarin dabci wacan dabnima qaaliyoon abidka duugoobin xariira nasab daahiro nolosha ii darta jirnimo midan kaga boxon dalka kaga raysto dabarkeedu heestaasi fanaanka anshax ee dejiya waxay u dambeysay idaacadayadii subaxnimo inta haddii laadhada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo dhammaan saaxiibadda viyoodinla sidaas iyo subax wanaagsan jirnimo midan kaga buuxoon ka kaga raysto dabarkeedu iimaanka yahay ma u diiday idoran lahayo adadayu garan kolbadda gafurkiyo dibnaha sare u duduud waxay diidi ama aan la garan waxay doonayso oo dabacsanaantiyo saamaha duray ka sii qaada